assalaamu calaykum asxaabta qaaliga aad iyo aad baan salaameynaa soo dhawaada halkan maanta waxaa ila jooga walaalkay duraan waxa weeye macallin software engineer sidoo kale waxa weeye aasaasaha iskuulka loo yaqaano gebi oo ah iskuul ama bootcamp ka caawiya ardayda rabta inay bartaan codinga iyo computer science-ka ama ay noqdaan software engineer duraan sidoo kale waxa uu sameeyey software loo yaqaano alif cloud oo ka caawiya iskuulada iyo masaajidada sidii loo maamuli lahaa markaa walaal duraan soo dhawow walaa mahadsantahay cabdi maasha allah aad iyo aad u mahadsantahay aad aan la dhaca maasha allah podcastgaada mid kastoo aan dhegeystaa maasha allah waxaa weye waa wax loo baahan yahay communityga in storieskoodii waxooda banaanka lasoo dhigo aad iyo aad u mahadsantahay maasha allah kuna soo dhawow Minnesota صح aad baad mahadsantahay duraan inaad xagga nagu soo dhaweyso we've been trying to make this happen for a while now I know balse maanta waxaan nasiib lana halkan aynu ku wada fadhiisano exactly haddaba san soo sheegay waxaad tahay software engineer software engineerinka iyo I guess IT-ga ama aaladda barashada luqadaha programming iyo computingku waa wax maanta aad waqti xaadirkan casriga aad loogu baahan yahay oo waxaad arkaysaa arday badan oo iskuul tagaya hadday tahay bootcamp hadday tahay jaamacadda si ay u bartaan coding waana waxyaabaha maanta ugu haddii aanu ka eegayno career prospectska iyo shaqo raadinta waxyaabaha ugu wanaagsan ee ay dadku shaqo ku heli karaan marka adagu waxaad bal wax nooga yar sheegtaa duraanow how did you actually become software engineer maxaa ku keenay riyada ah inaad noqoto software engineer bal taa tusha nooga yara taabo iyo backgroundkaaga siday riyadaas kusoo bilaabatay waa mahadsan tahay so software engineeringka kulley waxa waay hadda careerka aad loo raadinayo yuu ka mid yahay oo dhinaca technologyga aniga markaan bilaabayay horta ka hor waxaan ku jiray waxaan ka shaqeynayay non-profit aan ka shaqeynayay organization non-profit ayaan ka shaqeynayay dhinaca baare markii aan high schoolka kasoo baxayay sanadadii ka dambeeyay oo dhanna wax oo guidance ah oo inaan micnaha iskuul dhameeyay waxaas ma lahayn so waxyaala aniga aan rabaa iska sameeyey iyo shaqooyin oo aan micnaha ku meel gaar marka alxamdulilah adiga laakiin always intaan high school ku jiray ka horba aad aan u xiiseyna dhinaca technologyga waxyaala aniga iska sameynaya jiro website-yaan sameyn jiray high schoolka markaan ku jiray xataa waxaan u sameynayay waxyaalaha technologyga la xiriira sida website-yada yaa waxaan u sameynayay organizationada dacwada ka shaqeeya iyo iskuullada waxyaalahaas so wuxuu ahaa wax passion aniga lahaa u ahaa passionkaasna wuxuu ka imaaday yar walaalkay allah u naxariisto oo hore geeriyooday sanadii ka hor waa wiilka cidda noogu weynaa yaa waagaan yaraayo asagana technology samayn jiray soomaaliya anagoo joogno wuxuuna ahaa dadka micnaha meel aan laga aqoonin technology oo magaalo yaraan degnin soomaaliya ka mid ah oo cidna ka aqoon technology 1990skii wuxuu samayn jiray waxyaala technology la xiriiru samayn jiray so wuxuu samayn jiray for example wuxuu ahaa qof ugu horreeya typewriter isticmaala magaaladaas inta aan typewriter waxaas laga aqoonin kadibna wuxuu ahaa dadkii kombiyuutarada keenay oo kombiyuutarka ka isticmaali jiray always wuxuu ku jira technologyga wuxuu keenay waxyaalahan dish satellite-ku keenay oo meelaha laga daawan jiray idaacadaha waxyaalahaas wuxuu qof oo dhinaca technologyga aad u jecel u ahaa anigana dee waa arki jira mar kasta oo waxaan arki jira asagoo ku dhex jira oo wixii sameynaya hagaajinaya this and that so halkaas passionkay ka imaaday markaan maraykanka imaadayna anigana saas camal inaan sameeyaan rabay because aad aan u xiiseynayay laakiin ma haysanin maxaa la jiray wixii aan facility-ga iyo qalabka waxa ma haysanin so high schoolka wixii aan maray ka bacdina college-kan galay college-ka intaan ku jiro waxaan raadinaya classyo oo technology guidance fiican ma haysanin laakiin adi markaan dhameeyey college-ka caadiga community college-ka yaan intaan aadi lahaa jaamacadda 4 yearskii yaan wax shaqo bilaabay oo micnaha waxaan ahaa qofka familka laga sugaya African everything so shaqooyin iska sameynayay kadibna anaa wixii isbarbaray oo website si loo sameeyo and then business aan galay oo dhinaca web design-ka and then after that waxaan bilaabay in aan adiga sanadii la soo dhaafay aan raadiyo shaqo iskuul waxaan galay bootcamp oo ka baxay oo coding bootcamp kadibna saasaan kusoo galay careerka dhinacan oo shaqada caadiga waxaad markaa leedahay adigu route-ka ama dariiqad martay muu ahayn kan ay dadka badankoodu maraan amaba ma odhan karo badankooda because ma hayo numberka saxda laakiin dadkaynu aragnay jaamacadaha taga software engineerska badankoodu san jirnay jaamacaday ka soo baxaan laakiin adigu indaad tagtay community school oo soo qaaday dhowr sano ayaad markii dambena bootcamp gashay sooma aad iyo aad so badanaa dadka waxay galaan 4 year school markaa high school ka soo baxda camal 4 sana galaysaa jaamacad
computer science qaadanaysaa dadka badanaa waxay oga cararaan waxay u badan tahay xisaabaadka so class markaa fiiriso hadda iskuula jaamacad kasta haddaa fiiriso programka dhinaca computer science-ka waxaa inaad graduate waxaa kaa xigo intaasoo class oo math badanaana dadka high school markay ku jiraan mathka waa iska dhamee so badanaa dadka passionka maaha ma jecla mathka maxay loo adagta mathka waxay u baahan tahay in laga soo dhiso basically haddii aadan baranin haddii aadan aqoonin waxyaalihii fractionka haddii aadan si fiican u aqoonin waa kuga adkaanaysa algebra waa kuga adkaanaysa kan so wixii isduldul fuulaa aakhir mathka dhan waxay kugu noqonaysaa wax derbi camal marka taasa marka dadka badanaa ka hor istaagta in ay pursue gareeyaan 4 years ay arkaan 10 class oo math oo advanced math isku jiro kala nooc marka arkaan waxay leeyihiin ma bageli karo classkaas laakiin run ahaantii dhinaca computer science-ka badanaa marka coding sameynaysa math badan ma jiro in real life laakiin waa as-aaskiis waa math so taasun baa dadka badanaa u diida laakiin waa ani waxaan soo qaatay dhinaca kale oo ah dhinaca coding bootcampka oo dhowr biloodan ku jiray aan halkaas ka soo baxay niyo markan maqlo codingka iyo computingka iyo computer science-ka waxyaabaha inta badan igu soo dhaca waxaa ka mid ah Java waxaa ka mid ah Python waxaa ka mid ah C++ and kuwan waxaan jeclaynahay luqado ama languages computer language soo maha bal wax nooga yara sheegniyo luqadaha noocan ah waxyaabay kala yihiin noocyada aad maanta isleedahay ma qofka baradka ah way u wanaagsan yihiin waxyaabaha farqiga u kala dhexeeya bal aniga iyo dadka kale ee laga yaabo inaanay sawir sax ka haysan ama aan waxaan aqoon buuxda u lahayn bal sawir naga yara si waxay yihiin iyo sababa useful noqon karaan exactly so computer science-ka siiba dhinacan programming ama software engineering-ka wuxuu leeyahay luqado kala duwan so 60meeyadii 50meeyadii yaa lasoo bilaabay waxayna ku bilaabatay badanaa in wax la xisaabiyo waagii dagaaladii cold war ku dhici jiray yaa Germanka iyo wadamadan iyo wax in la xisaabiyo wax oo message lasoo diray meel kale laga soo diray si dhaqso decoding loogu sameeyo oo xisaabaad badan ku dhex jiro waa wax la qarinayo dagaalada lagu qarinayo yaa computer loo sameeyay so qof kasta computer faster hadaa haystid message ku soo diray qof oo qarsoon si dhaqso ku bixin kartaa xisaabaadkan waxay ka imaadeen qarniyo hore oo dadka xisaabaadka shaqeyn jiray science-ka Newton iyo dadka hore يا حسابات سمين جري لكن كمبيوتر ده حواي واحد معناها شقدي فضديناي سو آخر وحين قلت كمبيوتر كلوقة هاللوقة ده كهلا أو إحنا نمبر بس لوقة كمبيوتر كهلا 0 and 1 كهلا وأركز باينري لانجويج كهلا أو 0 1 كاس مركو أذكر تاي إن أد decoding كسمة سو أذيك أد أخرسه سو حال اسمه واحد هو human friendly language وسيد عمل لوقة ده هان جافا بايثون waxaa ku qoraysaa xarfo oo English ku qoraysaa ka bacdi wixii computer ku fahmaya marka ku qorto wixii so wixii adi encrypt instruction computer si uu siina so luqadahan marka waa la soo saaray hadda waa la advance gareeyay waa la hormariyay hadda luqadaha is leeyahay markii noqoto suuqa la raadinayo waxa u badan luqad la dhaho JavaScript way ka duwan tahay luqadan la Java waa laba luqado kala duwan waay okay Java waa luqad Java waxaa lagu dhisaa Android-ka so apps-ka Android-ka oo hadday telephone Android waxaa lagu dhisaa luqadda la dhaho Java ka hadashay JavaScript-na waa luqadda browser-ka markii aad ku jirtid oo pop-ups kugu soo boodaan luqadda lagu sameeyo waa pop-upskaas so waa luqad la xiriirta dhinaca browser-ka oo browser-ka waxyaalaha lagu sameeyaa waxyaalaha hadda aragto social media iyo anything oo comments-ka waxaas JavaScript ayaa xoog loo isticmaalaa waxyaalahaas so luqad kasta waxay leedahay wax use gooniya leedahay luqadahan Python la dhaho luqad Python la jirto oo sida English u qoran luqadaas badan waxaa loo isticmaalaa data science waxa la dhaho ama numberada ama dadka science-yaasha isticmaala sida ay data wax u kala gudbiyaan so luqad kasta wax bay xoog ku leedahay laakiin haddii aad rabtid in aad macnaha hadda web development-iga gashid web development-igana waxaa waaye inaad website-yada dhisto ama apps-ka sida camal any app adiga isticmaalaysid kaba soo qaad Facebook waa app Twitter waa app markay noqoto adoo browser-ka isticmaalaya haddaad rabtid inaad dhistid waxaa isticmaalaysaa JavaScript HTML iyo CSS marka luqadahaas waa luqado webka loogu talagalay luqado kalena way jiraan oo dhinaca serverka waxyaalahaas loogu talagalay laakiin qofka marka hore wuxuu ku bilaabaya hal luqad marka luqadaas fahanto luqadaha kale oo dhan waxay sameeyaan waa fahmaysaa sida camal adiga oo bartay English luqadaha kalena structure-kooda waa garanaysaa luqad kasta waxay leedahay su'aali leedahay waxay leedahay exclamation mark waxay leedahay all that stuff luqad kasta waxay leedahay same structure laakiin habka loo akhrinayo kala duwan iyo habka macnaha loo fahmayo programming language-kana waa similar marka waxaad leedahay qofku
marka hore si uu barto skillkan sidii luqadaha loo akhriyayo sidii aad u baran lahayd habka loo barto waxaa wanaagsan inaad ku bilowdo hal luqad oo Java oo kale ama C++ oo kale ama whatever luqadu ay tahay recommended luqada ay tahay inaad ku bilowdo kadibna taas waxay ku sahlaysaa inaad luqadii kale ka fahanto so way adagta inaad luqado hal mar isla barato adigoo lagu dhahay French iyo English iyo Arabic hal mar isla baro so waxaa fiican marka in aad hal luqad marba xoog saarto mana xataa luqadaha oo caadiga oo bini aadanka xataa ma aha maxaa yeelay Java haddaa barato luqadaha kalena way isku egyihiin oo xataa ma aha waa sida adigoo bartay camal lahjad adigoo bartay camal waaye more like lahjad oo accent camal more than luqad so adigoo bartay lahjad Mareykanka looga hadlo dhinaca northka ka bacdina lahjada looga hadlo dhinaca southka waa fahmaysa qofku inuu ku hadlaayo laakiin adiga ma dhihi kartid so saas camal waa luqadaha syntax yariisi kula duwan yihiin moogi ma wax aad u kala fog so waxaan dhihi lahaa qofka hadduu rabo in uu focus ka saaro hal luqad ku filan tahay ka waran waxaan maqlaa luqado kaloo sida inay horta luqadayin ma huba laakiin waxaan maqlaa Apple oo kale waxaan maqlay waxay leeyihiin wax iyaga u kaara iOS Amazon kule wuxuu leeyahay AWS kuwaas iyaguna ma luqadaha mise waa waxyaabo kale bal so badanaa hadda kambaniyada waaweyn sida Google Apple siba Google iyo Apple waxay sameeyaan luqadihii horey u jiray qaadaan wax bay ka bedelaan ayagaa magac gooni oo la baxo so taas oo soo saara Microsoftna way leeyihiin luqad la C# Microsoft waxay qaadeen luqad la C waxay ku darsadeen waxoodii habkoodii u sameysteen C# soo saareen marka badanaa luqadaha waxaa weeye wax la dhaho open source oo macnaa qof kasta isticmaali karo wax lacag uma baahnid inaad bixisid waa free way luqadaha so waxaan dhihi lahaa haddii luqadaha haddaad rabtid inaad baratid iOS-ka waxaa baranaysaa ka soo qaad luqad la dhaho Objective C inkastoo hadda yar bedeleen luqad kale u bedeleen laakiin Objective C haddaa baratid okay waaye waana luqad C laga soo qaaday luqad waxaa jirta C la dhaho luqadaha aasaaska ah oo la sameeyay 1960 meelahaas la sameeyay luqadaas marka asaas waa marka luqadoo dhan waxay ka soo baxaan luqadaas waana la cusboonaysiiyey hadda badanaa markaad sameynaysid wax qoraysid coding uma baahnid in aad taqaanid macnaha waxyaalaha luqada si loo sameeyey adiga waxaa u baahanta bis inaad taqaanid luqadahan casriga inaad barato waana la fududeeyey wixiio waaga hore siduu adkaayeen ma ahan okay sax si wanaagsan baad taa uga hadashay waxaad ka warantaa bal markaynu eegayno software engineerska waxyaaba ay qabtaan iyo shaqada ay qabtaan ama noocyada ay u kala baxdo bal taa wax nooga yara sheeg waa maxay different career process career not bad but I wouldn't say well we can say bad but also qofka software engineerska shaqooyinka kala duwan ama noocyada shaqadiisu u kala baxdo maxaa ka mid ah ee uu qaban karo so taas markaan ka hadlayo badanaa example haddaan kasoo qaato waa sida camal adigoo guri dhisaayo soo ka soo qaad company weyn oo tech ah sida Amazon camal waxay rabaan in guri loo dhiso so adiga haddaa tahay marka front end developer haddaa tahay waxaa jiro wax la yiraahdo field macnaha la dhaho title front end developer waa adigoo camal lagu dhahay paint garee buildingka adigoo loo dhahay so waxaa sameynaysaa website-ka Amazon camal waxaa ka shaqeynaysaa quruxdiisa suu egyahay waxaas marka adiga waxaa markaas front end developer back end developer haddaa tahay waxaa ka soo qaad plumbing-kiyaa sameynaysaa waxaa taa qofka fiilooyinka isku xidhaa koronto isku xidhaa wixii gudaha gelaysaa badanaa back end developer qofka markuu yahay lama arka shaqadiisa waa sida camal motorka gaariga camal waaye waa sida camal plumbing-kii waa wax micnaha background laakiin muhiim ah oo aan shaqeynin wixii ilaa waxaas leeyihiin foundation way so website-ka markaa ku jirtid oo aad dhahdid ka soo qaad aad alaab check out ku samaysid wixii u diray database-ka instruction-ka u dirayay database-ka hubinayay inaad adiga ka mid tahay inaad customer tahay waxaas dhan waa dad ka shaqeynaya back end gala marka badanaa waxaa arkaysaa front end back end developer and then waxaa arkaysaa full stack developer waxay dhahaan software engineer full stack developer waxaa qof labadaba sameynaya so marna waa bixaysaa banaanka paint garanaysaa marna gudaha soo gelaysaa plumbing-ka sameynaysaa waxyaalaha isku xirxiraysaa xataa qof oo wax kasta sameynaya so labadaas saddexaas u kala baxaan waxaa kaloo jiro dad sameeyo dhinacaan maxaa la dhihi jiray engineering kala duwan oo sida camal AWS waxay dhahaan AWS engineer oo waxaa weeye qof oo serverkii oo computer meel yaal ka shaqeeyo so badanaa hadda waxay sameeyaan wax la cloud so Amazon waxay leeyihiin AWS wax la dhaho Amazon Web Services waxaa weeye Amazon businesskooda 80% meesha ka imaado waay maba xataa dukaankooda ma ahan oo Amazon meesha businesskooda ka imaado wuxuu ka imaadaa AWS-ka
waa dhismayaal waaweyn ay ku jiraan servero oo Amazon ay leedahay way ilaaliyaan way maintain gareeyaan ayaga hagaajiyo serveradaas waxaa ku jira marka company waaweyn ku jiro oo space kule meesha sida Netflix movieyaasheeda dhan waxay ku jiraan AWS oo waxay sameeyeen Amazon oo dhismayaal ay sameeyeen ilaaliyaan ayaga oo xataa kombiyuutarada iska garanaysa kombiyuutar uu kululaanaya uu damaaya uu halaabaya waxaas oo dhan ragaa ka shaqeeya marka meeshaas so kuwaas waxaa la dhahaa AWS engineers la dhahaa ama DevOps na way dhahaan so waxaa jira physical iyo non-physical waxaa waaye kuwan cloudka dadka shaqeeya adoo gurigaada joogo yaa servera halaabaa lagu leeyahay kabacdi server kale ku duwaysaa wixii ama traffic ama wixii gelinaysaa yaa u duwaysaa waxyaalaha hagaajinaysaa system yaa dhisaysaa dad kalena waxay ka sameeyaan meesha physicalka waxaad tegaysaa meesha check-in gelinaysaa waa dhismo weyn so engineering technology aad u badan yahay uu kala baxaa markii noqotana dhinaca developmentkana waa backend frontend iyo full stack dad qaarkood waxay ka shaqeeyaan databases waxyaala iyo waxa la dhaho database oo information ku jira database-ka ayaa maamulaysa waxay isticmaalaan waxa la dhaho SQL ama SQL luqad loo dhaho marka aad u sii kala baxaan laakiin badanaa waxaa fiican qofka inuu at least uu noqdo full stack haddaa shaqo raadinaysid oo rabtid inaad shaqo hesho waxaa fiican inaad barato frontend-igi backend-igi and then hadhow haddii ku dhahaan midkaa ku fiican tahay midun inaad iska qaato dhahdo frontend-igaan ku fiicanahay laakiin haddii ku dhahaan waxaan rabnaa full stack labadiba waa tahay markaas so mana adka labadoodaba inaad micnaha aad baratid markaa baranaysid frontend-iga backend-igana u baahan tahay waxaad wax noqon sheegtaa bootcamp baa tagtaa adigu kulle waxaan jeclay bootcampkaasi inuu qaatay waqti aad uga yar ka qofka taga 4 sano oo iskuula inuu waqtigaas aad uga yaraa baan jeclay haddaba ka waran bootcampka aad gashay bal sidoo sawir nooga sheeg iyo waxyaabaad ku soo baratay would you recommend qof imika ka fikraya inuu coding bilaabo inuu bootcamp galo mise inuu jaamacad galo bal sawir naga yara si aad iyo aad so bootcampka aniga aan galay wuxuu ahaa online bootcampida waxay kala yihiin mid physical ahood magaaladaada ku yaala aadi kartid oo kalaasi caadi leh sida iskuulka camal college caadiga iyo kuwa online ah jiro oo adoo gurigaada jooga ka baran kartid oo just coding ku baraayo aniga midkaan galay online ahaa waaga aan baranayo wuxuu ahaa I think 8 bilood ama 9 bilood oo ahaa 9 bilood hadda 6 bilood ka dhigeen soo yareen barnaamijkii so 6daas bilood waxay kala leeyihiin full time iyo part time so full time hadaarti part time waxay ku qaadanaysaa 12 bilood maxaa yeelay waa double full time na waxa weeye waa qof aan shaqo kale haysanin oo wax kale aan haysanin oo just only sameynayo maxaa la jira coding sameynaya so badanaa full time wuxuu ku fiican yahay qof ay noloshiisa micnaha aan u baahnay responsibility kale aan lahayn so qof oo for example amal u soo farabaxsaday oo aan micnaha sameynay shaqo kale oo aan responsibility kale family badan lahayn waxyaalo yar waa sameyn kartaa oo waxa laga yaabaa hal cunug hadaa haystid amal waad ku dul sameyn kartaa oo cunug yar guriga joogo laakiin responsibility badan hadaa leedahay way adag tahay full time-ka bootcampska badanaa waxay ku fiican yihiin qof oo xoogaha practice gareeya so waxaan dhihi lahaa haddaa bootcamp galaysid bil ama 2 bilood camal adi isu soo bar wixii so waxaa samaysaa internetka gal YouTube waxaa sameynaysaa raadinaysaa coding tutorials web development tutorials badanaan bootcampyada ayagaa waxay ku siinaya wax la dhaho pre-course waxay ku siinayaan course yaroo free ah ay ku leeyihiin okay horta intaadan classka caadiga u gelin waxaa samaysaa coursigan samee oo freega ka dhex bax haddii aad micnaha ku fiican tahay then way ku fududaanaysaa inaad mid ka weyn samayso so badanaa bootcampska waxaa loogu talagalay qof oo aan rabin inuu ku laabto 4 sano iskuulka wuxuuna ku fiican yahay qof oo self starter ah qof asaga iswado ayuu ku fiican yahay qof wuxuu ku fiican yahay micnaha ka adag waqtigiisa time managementiga ayuu ku fiican yahay iyo qof oo aan give up sameynaynin maxaa yeelay bootcampka waxaa gaaraysaa waqti oo waxaa baranaysa aadan garanayninba oo sida camal aniga hadda kahor macallin wuxuu yiri bootcampka marar qaarkood waxay noqonaysaa adiga oo ku jiro meel oo forest camal forestigaas marka ma arkaysid wixii meeshii destinationka ma arkaysid wixii ka dambeeyay ma arkaysid waxa aragtaa on just wax gacantaada hortaada bis aragtaa marka wuxuu ku leeyahay wuxuu yiri marka just keep going maxaa yeelay markaas ma garanaysid meesha u socotid laakiin marka aad ka baxdo oo buur fuushay aad arkaysaa picture ka dhan aad arkaysaa wixii aad baranaysay so anigana waa arkay so markaan ku jiro bootcampka casharo waxaa jiray gooni ah oo aad u adkaa oonan markaas aadan garanay exactly waxa sameynaysid waxaad raadin kartaa support waxaad raadin kartaa tutoring mentoring dad yaqaana raadin kartaa
dadaal as much as you can like haddii ay aadan garanaynin boqolkiiba boqol is fine just keep going marka ka baxdo waxaa arkaysaa wixii adigoo si fiican u yaqaano so bootcampku adag yahay laakiin at the same time waa waqti yar oo micnaha aad sacrifice garaynaysid intii aad ku bixin lahayd 4 years 6 bilood oo sacrifice garaysay oo micnaha careerkaada ku bedeshay wax weyn waaye badanaana dhinacaan maybe inaan ka hadalna laga yaaba laakiin dhinaca financialka markay noqoto salaryga software engineering waxaa weeye waa averageka waa $76,000 maraykanka and $76,000 a year so badanaana waxaa helaysaa way more intaas ka badan 6 figures caadi waa wax caadi ah 6 figures markaan waxaan ka wadaa boqol wax ka badan $100,000 ka badan sanad bishii inay kusoo gasho 10,000 sanad bishii inay 10,000 camal kusoo gasho waa wax caadi ah oo micnaha qofkii hal sano camal ku jiray uu heli karo marka ma aha wax oo micnaha dadaal un bas u baahan tahay careerka dhinacan kale oo 4 yearskana kulli qofka wuxuu ku fiican yahay markaas high school ka soo baxay so haddii aad markaas ku cusub tahay careerka ama aadan weli micnaha waxba inta ku kala bixin oo tribtid inaad aragtid waxaan inaad jeceshay in kale waxaan dhilaha 4 years uu fiican yahay siiba dhalinyarada oo micnaha hadda high school ka soo baxay maxaa yeelay ma lihid experience badan ma lihid so waxaa rabtaa inaad aragtid waxyaalaha kala duwan 4 years kan waa adag yahay laakiin waxaan dhihi lahaa haddii qofka uu ka bixi karo wuu aad u fiican yahay maxaa yeelay waxyaalo badanaa baranaysaa iyo connection badan